warwar ma haysaane wasaaradda caafimaadku maanta baabuurta ambalaaska dhaawacyada lagu guri jiray bay soo saftay aydhiboorkaanay fayl u geliyeen waxayna yidhaahdeen koronafirus baanu karantiilaynaa markaa ma 5 milyan ee huu bixinaysay baa la xalaalaysanayaa war baabuurtaas dhaawacyada qaraxyada lagu qaadi jiray koronafiruskana ma lagu qaadaa aryaadhaha war ma haysiina heergaalkacyo qalabkii karoona lagu baaraayo ma haystaan laakiin xeelad kale ay keeneen qofkii dayuuradka soo dega eraboorka xafiis laga furayaa la geeyaha ka kadibna kutub quraanaha la soo hordhiga ka kadibna inaadan koronafirus qabin ma kugu wallaahiya ma kugu bilaahiya ma kugu tallaahiya ha la leeyahay kadibna marka u dhaarto waxa la leeyahay qodaayo xerada inta dayuuradda soo saareed wax qandaa amaad isku aragtay in adeero war mid ka mid ah dadkii gaalkacay lagu dhaariyay ayaa hadlay oo wuxuu yiri qodhiin iyo xeradin ma anigoo nin weyn ah bayraban inaan corona sheegto war gaalkacyo qiso kale taakaya badan baa ka dhacday la yiri nin tuuga wuxuu u soo dhacay niman iska bulay guriga degan yihiin kadib cabaar haduu baarbaaru wuxuu helay jaakad xoogaa culus waa la cararay dhaxintuu sii marayo wuxuu arkay fiilooyin iyo waxyaabo ka soo jeeda asagoo shakisan oo firfirinaya ayay askar aragtay markaasay qabteen kadib jaakadii waxa la arkay in qarax ku jiro kadibna asagii markii la wareystay wuxuu yiri anu waa soo xadanimada jaakadan tuug bisaan aha dari baana ka ahay waxa ku jira kadibna meeshaad ka soo xadayna geey baa la yiri hadda ragii iska bulada ahaayo alaabta isku qoofashay baa la soo qabtay markaas asagii la sii daayay sheekeeyo wuxuu yiri waligay iyo Allah tuuganimo xalay ugu dareed markaan qaraxa soo xaday cali dheere afayeenka al-shabaab wuxuu yaqaanaa kaasoo kale taariikh fi sabiil al-hasana wal jihad